بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة سم كودرس qaybtan waxaan ku baran doonaa operators ama xisaabfalada hore u taqaanay ama iskuulada ku soo dhiganay ku darta ka jarta isku dhufashada iyo isu qaybinta ah labada ugu dambeeya mid remainder baa la dhahaa waa ama modulo baa luqadaha programka lagu dhahaa waa hadhaaga tusaale ahaan laba loo qaybiyo 5 maxaa ka soo hadha hal hadhaa ayuu ku saaray hal ah 10 loo qaybiyo 3 na maxaa ka soo hadha hal tusaale ahaan saas oo kale ama labo tirada hadba isu qaybisay ku xidhantahay exponential-kuna waa power-kii haddaad doonaysid laba lagu jibaaray 3 ama laba lagu jibaaray 4 marka javascript waxa la dhaho function ku qabanaya jira laakiin marka hore waa inaad ogaataa asaaskooda bal aynu bilowno hadaba environment-ga ayaan soo furnay run.js waxaan ku bilaabaynaa comment xisaabfalada waxaan naqaanaa ku dar ka jar ku dhufo calaamadda yar asterisk-ga iyo u qaybiyo ah calaamadda yar slash-ka waxa soo kordhay calaamadan percentage-ka oo la dhaho remainder ama modulo iyo double asterisk oo ah exponential intaas ayaan marka hore eegi doonaa tusaale ahaan waxaan dhihi karnaa console.log 4 lagu daray 5 kabacdina waxa soo baxay 9 waa ku dartay cadigeeda taqaanay haddaan dhaho 4 ku dhufa 5 maxaa soo baxay calaamadaas isticmaalaya waa 20 haddaan doonayo inaan kala jarana -1 ayaa soo baxaya sababtoo ah 4 yar haddaan doonayo waxaan ka dhigi karnaa 40 soo 40 laga jaray 5 waxa weeye waa 35 40 loo qaybiyo 5 8 simple intaas waa inta hore u taqaanay waxaanu eegaynaa labadan hadaba haddaad inta variable baa qaadan kartaa no problem dib male haddaad inta dhigi kartaa let wadar ama xisaab waxa doonto dheh waasan garee laba tiro tusaale ahaan 40 loo qaybiyay 5 kabacdina waxa uu yeedhisaa xisaabtaada ayaa yeedhisaa ama variable walba ama doorsoomo walba waxaad u qaadan kartaa hal mid ayaa u qaadan kartaa okay inta hore u taqaanay waxaan inagu soo kordhay modulo iyo asterisk oo ah exponential waxaynu eegi doonaa bal faa'iidooyinkooda iyo waxyaabaha kalifay in aynu isticmaalno waaye modulo wax kale ma aha waxaad kartaa 40 modulo 5 haweey marka 40 loo qaybiyo 5 waxa ka soo baxay hadhaaga marka la doonayo ama modulogu ama remainder-ku waxa weeye tirada aad u saartid oo aan point lahayn oo inta badan haddaad xisaabta soo dhigatay fraction-ka ama jajabiyada waxa loo bedeli jiray mixed fraction baa jiray oo hadhaaga sheegi jiray soo waxa ka soo baxay 0 oo ah eberkan waxa weeye 40 marka 5 loo qaybiyo 8 baa loo saaray hadhaaya male laakiin haddaan dhaho 41 ka waran hadhaagu muxuu noqonayaa hal yes marka modulo-ga saas soo shaqeysaa waxaad isticmaali kartaa laba loo qaybiyo 41 hadhaagu waa hal laba loo qaybiyo 40 waa maxay hadhaagu waa eber marka hadhaagu waxa weeye labadan tiro marka la soo qaybiyo oo aan point la gelin waxa ka soo hadhaya waayahay tanoo kale maxay faa'iido leedahay marka qaarkood halkan waxa ku haystaa tirooyin fara badan array of tiro kabacdi waxa lagu dhahayaa tirooyinkaas waxaad ii soo saartaa inta odd-ka ah iyo inta even-ka waxa taqaanay wax la dhaho odd iyo even af Soomaali waxay noqonayaan 15 iyo dhaban sometimes anigu isku khaldaa 15 iyo dhabanka laakiin 15 iyo dhaban waxa weeye tirada hadday is dheer tahayna waa dhaban hadday is leeg tahayna waa 15 marka hadii lagu rabo in aad soo saartid inta 15 ah dee waxaad dhahaysaa tirooyinkan oo loop baad gelinaysaa tirada aan rabo oo loo qaybiyay labo hadhaageedu hadduu eber yahay tirooyinkaas waxa weeye waa dhaban waxaan leeyahay eber yahay waa 15 haddii hal ka soo hadhana waa dhaban saas oo kale ayaa dhahaysaa marka waxaa la dhahaa hadhaaga ayaa raadinaysaa kabacdi kan waxaa ka soo baxaya eber waaye waxaynu eegi doonaa qaybta exponential-ka ama power-ka marka tusaale waxaan leedahay let jibaarani laba lagu jibaaray ama 5 lagu jibaaray labo maxaa kaga soo baxaya haddaynu jibaarano u yeedhno waa 5 baa laba jeer la isku dhufanaya wax kale ma aha waxa weeye waa 5 lagu dhuftay 5 haddaan marka la dhaho 5 lagu jibaaray 3na waxa ku soo baxaya 125 waa 5 lagu dhuftay 5 lagu soo dhuftay 5 waxa ku soo baxaya 125 marka jibaaranuhu saas u shaqeeyaa jibaarana kaliya ma isticmaali karto waxa jirta mid la dhaho power-ka ka saaraysa ama square root-ka
square root of Soomaali maxaa lagu dhahaa way leeyahay square root marka doonaysa inaad ka saartid 5 waxa dhahaysa sidan laba jeer asterisk kadibna 1/2 ayaad kaga saaraysaa marka square root baa la dhahaa marka intan ayaad kaga saaraysaa 5tii square root-ka soo haddaan square root-ka raadino waliba square root aan dhahno waxaa ku soo baxaya 5 baa ku soo baxaysa sorry 5 oo kale marka doonaysa square root ka saarno waxaa ku soo baxaysa 5 sidoo kale square root-ka haddaan rabno inaan ka saarno 81 maxaa ku soo baxaya 9 sababtoo ah 9 lagu dhiftay 9 waa 81 marka square root-kana qaabkaas ugu saari kartaa waxaa kaloo samayn kartaa cubic root ayaa isticmaali kartaa oo saddex jeer tirada marka la isku dhufto ayuu cubic ahaa marka cubic root-ka xataa ka saari kartaa cubic root intaan soo qaadanaynaa halkan aan cubic root baan ku bedelaynaa cubic root waxa taqaanaa 2 lagu dhiftay 2 inay 8 tahay marka waxaa dhici kartaa haddaad doonaysa inaad 8 ka saartid cubic root-ka halaasha 1/3 soo waxaa ku soo baxaysa 2 sidoo kale waxaa taqaanaa 27 inay ka timaado 3 lagu dhiftay 3 sadarteed 1/3 ayaan kaga saaranaa cubic root-ka waa 3 marka tiro walba oo 3 jeer la isku dhifto qaabkan aad uga saari kartaa marka intan oo dhan baa lagu fududeeyay power-kan iyo square root-kan iyo waxaan oo dhan lagu fududeeyay tusaalaan square root-ka marka ka saaraysid math ayaa isticmaalka toos dad variable baa waasan garan kartaa ama doorsoome haddii rabno square root-ka inta tijaabino waa kan square waa 5 150 ama waxaan doonaynaa square root ka saarno 64 marka square root-ka laga saaro 8 yes so waxaa kaloo isticmaali kartaa power-ki math.pow waxay ku qabanaysaa exponential-kii waxaa dhahaysaa 5 lagu jibaaray 3 waa intee 150 nice marka functionada way jiraan waxba isku mashquulin maaha waxaan oo dhan inaad dhakada ka wada taqaanid marmar bay kula gelaysaa systemada ka shaqeynaya laakiin waa inaad taqaanaa at least basic hadaa u baahan tahay power iyo square root ma ina qaabkan isticmaashid functionadan ay javascript ku sameysay objectives-kan built-in-ka ee ku dhisan ayaa isticmaalaysa intaasna waxaad ku fahantay xisaabfalada waxaa jira waxa la dhaho precedence ama kala mudnaansiinta precedences-ku wax kale maaha precedence wax kale maaha waxa weeye waa bordmaski aad soo dhigatay ama bidmas waxa la dhaho oo addition iyo subtraction multiplication division so haddii aan dhaho console.log 4 loo geeyay 5 lagu dhuftay 5 maxaa ku soo baxay maskaxda gelinaysa kabacdi markii waa sida xisaabta caadi u dhigan jirnay iskuulada wuxuu sameeynaa 5 5 ku dhufanaa 4 buu geynaya maxaa ku soo baxay 9 marka mar walba wuxuu horeysiinayaa sida uu kala awood badan yihiin ama precedence wax la dhaho haddaan dhahno 5 loo qaybiyo 5 lagu daray 4 waa maxay waa 5 marka labadana isu qaybinaya kabacdina sidoo kale waxaad samayn kartaa haddii ay jiraan adoonsiin labadan hormarisid qoyska ayaa gelinaysa marka qoyska wuxuu ka baawar badan yahay ku dhufashada iyo isu qaybinta qoyska ka badan marka labadan isku daraya waa 9 loo qaybiyo 5 ayaa ku soo baxaysa 1.8 marka labadan isku daray waa 9 loo qaybiyo 5 1.8 marka sida xisaabta u kala hormarisid ayuu tan kugu kala hormarinayaa taasna waxa weeye waa precedence waxaynu eegi doonaa increments iyo decrements way increment waxa weeye inaad xisaabtaada tiro ku kordhisid decrementna waa inaad tiro ka dhintid ama hal ha ahaato ama laba ha ahaato tusaale let aan dhahno deyn qof baa lagu leeyahay deyn waxaa lagu leeyahay $100 deyntii waan u yeedhayaa console.log deyn maxaa soo baxaya 100 baa soo baxaya kan aan comment ka dhigno kan aan igu soo baxaya 100 kan marka waxaan rabaa inaan wax ku kordhino marka waxaan leenahay deyn ama u asan garee deyntii hore oo lagu daray 10 maxaa ku soo baxaya filaysa $110 nice ama waxa dhigaysa deyn u asan garee deyntii oo lagu daray 101 waayahay qaabkan marka waa qaab dheer qaab kale aad samayn kartid baa jira waxaad dhigi kartaa aduu barteeda joog waxaad dhigi kartaa deyn plus soo maxaa ku soo baxaya 101 sidoo kale xagga dambana waa ka marin kartaa kan waxaa la dhahaa prefix kana postfix ayaa la dhahaa labadaba 101 ayaa ku soo baxay haddaa minus dhaw maxaa soo baxaya 99 ayaa soo baxaysa haddaan dhaho halkan iyadoo joogana minus
iyadana 99 baa soo baxaysa marka waa qaab fudud oo isticmaali kartid +1 tiradiina mar walba ku kordhisid inta badan waxa ku arkaysaa loopiska iyo marka for loopiska isticmaalaysid here's trick hadaba halkan ayaa waxa ku jira wax lagu duufo haddaan doonayo inaan dhaho tusaale ahaan dayn waasan garee dayn plus maxaa filaysaa inay kuu soo baxdo bal qiyaas waxaa filaysaa inay kuu soo baxdo 101 laakiin waa khalad 100 baa kuu soo baxaya sababta kuu soo baxday waxa weeye markaad variable-ka reasan gareysid wuxuu ku soo celinayaa all value ayuu ku soo celinayaa waa marka la joogo postfix-ka laakiin prefix-ku mar walba uu saxsan yahay wuxuu ku soo celinayaa tiradii oo lagu daray marka aad iskaga ilaali minus-ka iyo plus-ku markay prefix-ka yihiin reasanka uu ku shaqeeyaa wuxuu soo baxayaa laakiin haddii aad inta asan gareysid aad u yeedhid oo aad tahay plus ama minus oo reassignment ku samaysid waxba iskama bedelayaan marka mar walba maskaxda ku hay haddaad reassignment samaysid inaysan waxba iska bedelahayn laakiin haddaad tabtiisa usoo qaadatid waxaa ku soo baxay 99 haddaad plus tirahdidna labada dhinac ku shaqaynaysa aan hore uga soconno marka qaarkood waxaad rabtaa let deynta aynu soo celnaa deynta hala mid ahaado qofka $100 baa lagu leeyahay qofkii $100 lagu lahaa waxaa rabtaa inaad tirahdid deyntii waxbaa ku biirayo deyn waasan garee deyntii oo lagu dhuftay 5 kabacdi waxa uu yeelanaa deyntii waxa ku soo baxaya $500 ayaa lagu yeeshay qofka Soomaa lacag fara badan soo qaabkan inta isticmaalaysid waxa sameynaysaa qaabkan u dhiraan karnaa ama u soo koobi karnaa inaan dhahno deyn times calaamadii soo horeysay equal 5 soo inta haddaynu comment ka dhigno walaalayn wax soo baxaya 500 baa soo baxday soo waa lagu fududeeyay waaye maxaa kaloo aad samayn kartaa tusaale ahaan dayn plus ka isticmaali kartaa u qaybida isticmaali kartaa 105 haddaad inta isticmaali kartaa u qaybidi 100 loo qaybiyo 5 waa 20 marka haddii aad variable samaysid ama doorsamo la dhaho qiimo dhimis oo deyntii aad ku dhufatay intii qiimo dhimista ahayd marka qaabka iyo fudud ay isticmaal kartaa sidoo kale meesha dhihi lahayd qiimahan hala muuqdo qiimihii hore oo lagu daray intaas haddana qaabka isticmaalaad marka qaabkan ayaad u soo gaabsan kartaa tiradaasna marka inta oo dhan uma baahnid inta oo dhan iska tuureynaa cut ugu dambeyn waxaanu eegi doonaa qaabka variables ku shaqeeyaan marka la asan gareynayo soo waxa dhigi kartaa multiple variables waxa dhigi kartaa a b c soo waxa dhigi kartaa a waasan garee b inay ahaato b na inay ahaato c na c ahaato 5 lagu dhuftay 2 ma garanayo goora xisaab noocan oo kale u baahanaysa laakiin hadda u yeedhid oo tahay console.log oo aad u yeedhid tusaalahan a maxaa ku soo baxay 10 bay la mid tahay b hadda u yeedhidna maxay ku la mid tahay ina waa 10 c hadda u yeedhidna maxay ku la mid tahay 10 marka wax fara badan oo tricks ah ama xeelada ayaa ku jira xisaab falada mar aad xisaabo nooc qaarkood u baahanayso way jiraan mar aad u baahanayso way jiraan waxaan in the projects marka project dhisaysid ama baahi ka gasho ayaad baranaysaa sida banaanban luqadda inaad wada baratid hal mar maaha Soomaaliga marka baranaysid in yar baad baratay intaas ku hadli jirtay marba in baa soo baratay marka luqadda marba in yar baro mar walba waxaan mataqaanaa kugu boorinayaa inaad practical farbadan samaysid si aad waxaan u fahantid aad iyo aad u mahadsantihiin وبالله التوفيق